waxay ka baxsadeen xabsi halis ah. A prison built to be unbreakable. kaasoo inay ka baxsan abid. 3 men. afarta dhinac ay ka xigeen biyo qabow. 1 plan. waxayna ahaayeen 4 maxbuus. No trace. waxayna sameeyeen qorshe cajiib ah. Fake heads. waxayna ka baxsadeen jaxiima. Around. lagu carbin jiray dambiilayaasha. They planned for months. ilaa maantana waa maqanayaal. They vanished into the night. meel ay jaan iyo cirib dhigeen la aqoon. No bodies were found. haddaba sidee u baxsadeen? Did they drown? halkayse u baxsadeen? Did they make it? sidayse ciidanka u khiyaameeyeen? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaynu jawaab ugu dooni doonaa xalqadeenan xogdoon oo ku saabsan baxsashadii xabsi ee cajiibka ahayd ee Alcatraz. This is a story about Alcatraz's greatest escape. tani waa Alcatraz. waa jasiirad yar oo ku taal galbeedka magaalada San Francisco oo u jirta masaafo 2 kiiloomitir ah. waxaana lagu qiyaasaa 4,046 mitir oo iskuweer ah masaafo ahaan. waxaana lagu naanaysaa dhagax. waxaana ka dul dhisan jasiiradan xabsi caan ah oo loogu magacdaray jasiiradda, kaasoo ahaa jaxiimo lagu carbiyo tuugada iyo dambiilayaasha ay xabsiyada kala hayn waayeen ama soo tuureen, kaasoo ku caan ahaa inuu ahaa xabsi aan haba yaraatee laga baxsan, sababtoo ah inay afarta dhinac kaga hareereysnaayeen biyo qabow oo qofkii ka baxsay isiilaah uu ku qarqoomayo kuna dhimanayo. waxaana la sheegaa ku dhawaad 14 maxbuus isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga in ama la dilay ama la qabtay amaba ay ku qarqoomeen biyaha. qaarna in la sheegay inay dib ugu soo laabteen xabsigii kolkii ay ku dhiman gaareen biyaha. xabsigaasina wuxuu ahaa mid aan dhisma ahaan fiicnayn balse ahaa mid aad loo ilaaliyo. maantase waxaynu ku tabin doonaa xalqadeennan rag ka baxsan doona jaxiimadaas ugana baxsan doona si cajiib ah. haddaba barana meesha laga baxsanaya yaa baxsanaya ayay su'aashu tahay. si kooban waa 4 nin. kani waa Frank Morris. waxa uu ahaa khabiir gacan fudud iyo tuug hore oo ku bilaabay yaraan, kaasi oo ay xabsiyadu ahaayeen hoygiisa una xidhnaa markaa bangigu dhacay. kanina waa Alan West. wuxuuna ahaa 20 jir, isna ahaa tuug ku bilaabay yaraan xatooyada iyo dhaca, kaasoo gacanta mariyay qasnado badan oo lagu naanaysi jiray dabaal. kuwanina waa ilmo aan gelin, waana walaalo aabba iyo hooyo wada dhaleen oo ay u raacday intaa inay tuuga ahaayeen la wada jira iyo in markaa ay u xidhnaayeen inay dhaceen hal cad bangi. afartaa tuug baana baxsan doona, dhigina doona wacdaro aan hore loo arag. balse waxaad isweydiinaysaa sidee bay uga baxsan doonaan jaxiimada calanka ku ahaydnaan laga baxsan? ha degdegin anaa kuu soo wada maalmaha ka mida isagoo Alan nadiifinaya saqafka sare ee dhismaha xabsiga ayuunbu si lama filaan u arkay shay uu la yaabay oo ahaa in godka dhismaha uu ka neefsado ama hawadu uga soo gasho uu toos ugu doolo saqafka sare ama dusha xabsiga. godkaas oo ahaa mid aan lahayn haba yaraatee wax sibidha ama sagbada oo ku awdan, cagsigase waxa ku gufaysnaa kuna xidhnaa biro yaryar oo xadiid ah oo si fudud loo jari karo ama loo jebin karo. wuxuuna xaqiiqsaday markaa haddii uu jaro inay u fududaanayso inuu meesha ka baxsado. wuxuuna qorshihiisii la wadaagay saaxiibkiisa ay xabsiga jaarka ku ahaayeen oo ahaa markaa Frank oo ku jiray qolka ku xiga, kaasi oo godku ku beegnaa qolkiisa, kaasi oo markii ay heleen jidka baxsiga ku kaliftay Frank inuu isna la wadaago qorshaha baxsiga asxaabtii isna la jaarka ahayd oo ahayd 2 nin walaalaha ahaa ee ilmo aan gelin ee qolka ku xigay, taasi oo keentay inay dejiyaan qorshe iyo qaab ay uga baxsan karaan xabsigan si wada jira afartoodu, iyagoo ogaaday in godka laga geli jiray hulul ama luqyaro ka dambeeyay meesha laga galo dhismahooga. kadibna waxaa la fuulayaa bir ama bulaacad si loo fanto ama loo fuulo saqafka xabsiga, kaasi oo ahaa qolka Frank dushiisa, taasi oo keentay inay isweydiiyaan si ay ku geli karaan huluushaas si ay u baxsadaan. waxayse ku xaliyeen midda qorshahoogii oo muddo sanado qaatay oo ku bilowmay in ugu horreyn daaqado yaryar oo ku yaalay dhulka xabsiga oo loogu talagalay in laga neefsado ay dalooliyaan faqaarna godkaas oo ahaa midaan qof geli karin. iyagoo isticmaalaya malqacalado amaba qaadada wax lagu cuno ayay faqeen godkii. sidaynu soo xusnay dhismaha xabsigu ma ahayn mid adag oo casri ah, taasi oo u fudaydisay inay qodaan xabsiga iyada oo aan la dareemahayn, taasi oo muddo qaadatay inay ku guulaystaan qodaalka si ay u qodaan god ku filan qof ka dhici karo. waxayna ku heshiiyeen 4 maxbuus in sanqadhooda aan la dareemin, qorshahooguna sir ahaado oo aanay cid kale ogaanin, waayo haddii la ogaado waa ay fashilmayaan. sida la sheegayna xabsigu waxa uu ahaa mid ay ilaalin jireen ciidan fara badan, lahaana caadooyin kala duwan sida in maxaabiista si joogto ah loo kormeero. sidoo kale waxaa jira xabsiga dhaqamo ah in habeenkii
markii ay caweeyaan maxaabiistu qaadaanna heeso sidoo kalena ay tuntaan qalabka kala duwan ee muusiga taasi oo u sahashay in xilliga buuqa uu jiro iyo muusigu inay ka faa'iidaystaan oo ay qodaan godka si aan sanqadhooda loo maqal oo ay ugu dhex qariyaan sanqadha kale sidoo kalena waxay qodi jireen dhismaha xabsiga inta badan marka xabsiga dhisayo ee ay jirto jabaqda faraha badan ee dhismahu iyaga oo xil saaray mid ka mid ah 4 nin inuu la socdo askarta halka 3 kale mid kastaaba uu qodanayo godkiisa sidoo kale waxaa la sheegaa in maxaabiista ku hareeraysan qololkoogu ay la socdeen baxsashada oo sida ay sheegtay hay'adda FBI-du ku dhawaad 80 maxbuus baa ogaa qorshaha baxsiga kuwaasoo la shaqaynayayba iyaga kana ilaalinaya askarta kuwaasoo la sheego inaan haba yaraatay mid ka mid ah aanu askarta u sheegin si loo xidho iyo inay wadaan qorshe baxsi kadib waxa ay muddo qodaan xabsiga waxa ay ku lingixi jireen godka kartoon si aan loo dareemin waxa ay u eekaysiiyeen qaabka daaqadu ahayd shax ahaan iyo sidoo kale midab ahaan sidoo kale godka waxa ay ku tiirin jireen si aan loo dareemin qalabka iyo alaabta kala duwan ee yaala gudaha xabsiga ama boqolkooga intaana markii xaliyeen waxa ku soo baxday caqabad kale oo ahayd sidii ay uga gudbi lahaayeen biyaha jasiiradda ee halista ah ee ku hareeraysan gebi ahaanba xabsiga kuwaasoo ah kuwa aad u qabow ahaana kuwa aanay ugu suurtogeli karin inay ka baxsadaan xalka keliya ay kaga gudbi karaanna waxa uu ahaa inay samaystaan doon si ay doon u samaystaanna waxa ay isu keeneen koodharhka roobka laga xidho ee xabsiga lagu dhex bixiyo oo lagu qiyaasay inay isku keeneen 50 koodh iyadoo aan la dareemin sidoo kalena waxaa caawinayay oo iyana koodharhsiiyey maxaabiistii ogeyd qorshaha baxsiga ee aan soo xusay inay 80 ahaayeen kuwaasoo la socday hawsha baxsiga si ay doonta u sameeyaanna waxa ay heleen tixraac maqaal jariiradeed oo ka hadlayay qaabka loo sameeyo doon macmal oo ay ka barteen qaabka ay u samayn lahaayeen kadib markii ay 50 koodh isku keeneen waxa ay keliya u baahnaayeen meeshii ay ku dhisi lahaayeen doonta taasna waxaa xaliyey Allen oo keenay qorshe ah inay ku dalisaan dusha xabsiga amaba meesha uu nadiifiyo oo ahayd meesha ay ka baxsan doonaan marka dambe nasiib xumase meeshu waxay ahayd meel la wada arkayo oo ay ciidanku la socon karaan arkina karaan waxa ka dhacaya taasi oo haba yaraatay suurtagal ahayn inay dhisaan doon sidoo kalena looma ogolayn Allen mooyee cid kale inay korto meesha taasna waxaa xaliyey isla mar kale Allen oo askartii u soo bandhigay in loo sameeyo daah ka ilaalinaya dhaska gudaha xabsiga ama boodhka oo uga dan lahaa inay samaystaan meel qarsoon oo ay ku dhisi karaan doonta si uu askarta ku qanciyana waxa uu dhaska ku soo qubi jiray una xaadhi jiray dhanka xabsiga si loogu ogolaado inuu daahyo u samaysto iyo weliba astur qarin kara goobta warninku caqli badnaaye waxa ayna sidaa ku heleen meel qarsoon oo ay ku samayn karaan doonta iyo weliba wixii kale ay u baahan yihiin iyagoo isticmaalaya 50 koodh kadib markii ay doontii dhiseenna waxa ay sidoo kale sameeyeen koodharka badbaadada amaba dabaasha loo xidho waxa ayna sidoo kale jareen birtii ku hareeraysneed godka saqafka sare ee xabsiga iyadoo meeshii qarsooneed ka dhigtay workshop ay ku fuliyaan qorshahooga inta dhiman balse waxa soo wajahday caqabad kale oo ahayd ka maqnaanshaha xabsiga marka ay doonta samaynayaan ilaan haddii la arko inay ka maqan yihiin qolka xabsiga cidda ku jirtaana aanay joogin waxaa la ogaanayaa qorshaha ay wadaan oo sida aynu xusnay xabsigu waxa uu ahaa mid ilaaladiisu joogto ay tahay farabadan yihiin si ay taa u xaliyaanna waxa ay samaysteen madaxyo been ah oo ay ka sameeyeen saabuun iyo sibidh iyo sidoo kale waraaqaha la isaga biyo saxarada iyagoo ku midabeeyey madaxyadaas workshopkoogii si ay ugu ekaysiiyaan qof waxa ayna madaxyadaasi u ekaayeen kuwo bini aadam sidoo kalena waxa ay isku dayeen inay timo u sameeyaan iyagoo ka soo xadaya timo raiislaha xabsiga sida la sheegay mid ka mid ah 4 nin ayaa ka shaqayn jiray timajaraha xabsiga madaxyadaasna markay ka maqan yihiin qolkooga waxa ay dhigi jireen sariirtooda si loo moodo inay hurdaan amaba jiifaan iyagoo ku dagaya kuna khiyaamaynaya askarta marka ay wadaan tirakoobka iyo kormeerka iyagoo oo saari jiray madaxa buste si loo arko timaha beenta ah loona moodo qof hurda kadib markii ay muddo 2 bilood doontii ka shaqaynayeen waxa ay dhameeyeen dhismaheegii waxa ayna dajiyeen habeenkii ay baxsan lahaayeen iyo weliba qorshihi ay ku baxsan lahaayeen afartooda oo wada jira. Here on San Francisco Bay, it was thought the cold water made escape from the prison impossible. waa casargaab ay bisha Juun tahay 11 waana sanadkii 1962 kolkii gobolku dhacay ee hurdo loo diyaar garoobay leelkii xabsigana la damiyey saacaduna ahayd 9:30 habeenimo 4 maxbuus waxa ay bilaabeen baxsigii habeenka mid kastaana waxa uu saaray sariirtiisii madaxii isagoo ku sallaxay
dhacay si loo moodo inuu hurdo kadibna waxa ay ka dhaceen daloolkii ay qoteen kolkii ay isugu yimaadeen huluushii waxa ay arkeen in saaxiibkoodii Alan uu meesha ka maqan yahay oo aanu weli qolkiisii ka soo bixin oo ay ogaadeen inuu furi kari waayay daaqadiisii nasiib xumana waxa uu awoodi waayay inuu jabiyo sibidhkii oo adkaaday iyagoo markaa saddexdii maxbuus kale ay go'aansadeen inay qorshahoogii fuliyaan saaxiibkoodna ka tagaan waayo waxa ay ku ballameen in haddii mid ka mida la qabto amaba uu awoodi kari waayo in inta kaleba ay baxsato oo aan qorshahoogaas muddada ay ka shaqaynayeen aanu qasaarin sidoo kalena waxay uga tegeen qalabkii baxsiga qaar ka mid ah si haddii uu jabiyo uu uga daba iman karo iyagoo markaa fuulay fantayna beebabkii iyo gidaarkii xabsiga si ay u koraan saqafka xabsiga kolkii ay koreenna waxay kaga daadegeen bulaacadii amaba beebkii markay dhulka u degeenna waxay si toosa u abbaareen dayrkii xabsiga oo markaa ahaa shabag ka samaysan bir iyagoo oo doontii wata ayaa ay shabagii ku jareen bir ay wateen kuna bannaysteen kadibna waxa ay ka baxeen dhismihii xabsiga iyagoo oo abbaaray dhankii xeebta si ay xeebta uga baxaanna waxa ay keliya u baahnaayeen inay naqaseeyaan doonta iyagoo oo ku buufiyey kuna naqaseeyey doontii qalab ay siteen oo ahaa mid muusig markii ay naqaseeyeenna waxa ay fuuleen doontii waxayna ka huleeleen meeshii iyagoo nasiib xumo ka tegey ninkii qorshaha baxsigaba keenay ee Alan oo awoodi waayay inuu ka soo baxo qolkiisii kaasoo markii dambe la sheego inuu rajo dhigay oo uu iska seexday sidaana waxay kaga baxsadeen gebi ahaanba jasiiraddii Alcastara sidaana waxa ugu horgalay qorshahoogii baxsi ee ay ka shaqaynayeen muddada sanadka ah 50 years ago this week 3 inmates managed to escape from Alcatraz prison kolkii waagii bariyey saacaduna ahayd 7 subaxnimo sidii caadada ahayd askartii xabsigu waxa ay ka dhawaajiyeen siirigii si ay u kacaan maxaabiistu loona hubiyo oo la kormeero kadib madax tirin iyo hubin waxa ay keen askartii 3 qol oo isku xiga in cidi ka dhex taagnayn oo aan laga sanqarahayn wayba hurdaan buu hoos u yidhi askarigii ilaalada ku qornaa isagoo ilbaabkii tumay kadibna markii ay cidi ajiibi weyday hore ayuu u galay xabsigii isagoo oo birsita taasi oo uu ku riixay madaxii maxbuuska markiibana waxa dhulka ku dhacay madaxii mise waa uu naxay oo kala qaboobay alla ma nin baa dishay buuna hoos u yidhi kolkii uu u fiirsaday madaxiina mise ma aha mid nool oo waa macmal iyadoo markiiba askarigii la socodsiiyey maamulkii xabsiga lana iclaamiyey in saddexdaa maxbuus ay baxsadeen waxaana markiiba loo dhaqaaqay baadidoonka maxaabiista baxsatay baadhidiina waxaa laga bilaabay gudaha xabsiga iyadoo la waraystay lana su'aalay maxaabiistii kala duwanayd inay wax kala socdaan baxsashada saddexdaa nin intaa kadibna waxa ay ogaadeen askartii in Alan West isna uu ku jiray qorshaha baxsiga kadib markii ay arkeen godkii ka furnaa qolkiisa isagoo oo markiiba qirtay inuu ku jiray balse waxa uu sheegay askartii qorsho beena oo aan ahayn meeshii ay u baxsadeen tuugtii si uu u marin habaabiye ciidanka oo aanay markaba u soo qabanin saaxiibadii taasi oo ay ciidankii gebi ahaanba baadheen jasiiraddii Alcastara iyo weliba dhulkii ku hareeraysnaa hadday tahay magaaladii San Francisco iyo sidoo kale jasiirada dhowr ah oo ku hareeraysnaa waxayna baadheen masaafo aad u fara badan warkii baxsiguna waxa uu noqday mid ay qaadaadhigaan bulshadii iyo sidoo kale saxaafadii markaa balse baadhitaankaas iyo raadintaa faraha badan haba yaraatee wax gura kamay gaadhin askartii iyaga oo haddana helay caddaymo dhowra oo sida la sheego waxa ay heleen looxa doontii oo dul heehaabayay badda sidoo kalena waxa ay ka heleen meel 2 kiiloomitir u jirta jasiiradda bacbalaastiga sidoo kale waxa ay heleen jacket amaba koodhka dabaasha balse doontii iyo maxaabiistii lama helin jaan iyo cirib meel ay dhigeen ilaa maanta bacdii ay heleenna waxa ku jirtay alaabo tuugtii ay lahayd sida sawiro iyo waraaqo ay u soo direen xubnaha qoysaskoodu 60 years ago this month, 3 inmates pulled off the impossible. They broke out of the escape-proof Alcatraz federal prison. baxsashadii kadib waxa la sameeyay baaritaano fara badan meesha saddexdii maxbuus ay jaan iyo cirib dhigeen nasiib xumo se wax haddayna lama helin ilaa maanta oo sheegaysa meesha ay qabteen walow dadku ay ku kala ra'yi duwan yihiin masiirkoogii habeenka iyo meesha ay ku dambeeyeen nolol ama geeri oo ay ku qarqoomeen biyihii qabooba ee ku hareeraysnaa jasiiraddii siday sheegtay hay'adda FBI-da iyo ciidamadii qaybta ka ahaa baaritaankooga waana lagu kala ra'yi duwan yihiin meesha ay ku dambeeyeen dadka qaar baana sheega inay doontoodii degtay oo ay ka
dabahasheen si ay u gaadhaan xeebta. Qolo kalena waxay sheegtaa in habeenka ay raaceen doon kale oo sugaysay oo u qaaday dhanka xeebta si ay uga baxsadaan jasiiradda, balse wax cadayna looma hayo. Doomuhuna mamnuuc bay ka ahaayeen inay u soo dhowaadaan xabsiga iyo jasiiraddaba. Sidoo kale waxaa la sheegaa inay dalka ka baxeen oo ay aadeen Mexico iyo weliba Koonfur America, sida waddanka Brazil oo la sheegay in lagu arkay labadii nin walaalaha ahaa sawiray leeyihiin walowse aan la hubin inay iyaga yihiin iyo in kale. Sidoo kale waxaa la sheegaa in waalidkii iyo qoyskii labada nin ee walaalaha ahaa ee baxsaday loo soo diri jiray hooyadood ubaxyo si sanadla ah. Geerideedina ay ka soo qayb galeen 2 qof oo laga shakiyay loona maleeyay inay yihiin labadeedii wiil ee baxsaday. Sidoo kale sanadkii 2013 waxaa loo soo diray hay'adda FBI waraaq qof sheeganaya inuu yahay maxaabiistii baxsatay habeenka, isaga oo dalbaday magangeliyo iyo xabsi fudud sababtoo ah inuu xanuunsaday ama jiran yahay oo u baahan yahay caawin degdeg ah, balse lama hubo inuu yahay isagii iyo inay warqadu tahay run. waxaase la hubaa inay ka baxsadeen xabsigii adkaa ee Alcatraz ugana baxsadeen qaab cajiib ah oo aan hore loo arag iyo ikhtirac ilaa maanta meel ka galay taariikhda baxsi. xabsigii Alcatrazna waxaa la xidhay sanadkii xigay baxsigooga fadeexad darteed. maxaabiistii ku jirtayna waxaa loo wareejiyay xabsi kale. haddii aad ka heshay daawada xalqadanna fadlan like saar, lana wadaag asxaabtaada, kana mid noqo xerta xogdoon oo la soco xalqad cusub maalin kasta oo Jimcaad. waxayna ku soo afmeeri doonaa xalqadeenan weer laga hayo Morgan Freeman oo ah lama hubo masiirkooga 3 nin iyo meesha ay ku dambeeyeen ilaa maanta. waxaase la hubaa inay 3 nin ka baxsadeen xabsiga halista ah. ha dhintaan ama ha noolaadaane waxa ay sameeyeen mid ka mid ah baxsashooyinkii xabsi ee uga cajiibsanaa taariikhda Mareykan. One thing is certain. Those 3 men did make it off this cold rock. Dead or alive, they pulled off one of the most daring escapes in American history.